dalka Jabuuti magaalada Carta magaalada Kishaasa gobolka Waama awdal ilaa Barinaba ilaa magaalada Hargeysa dalka Burca magaalada Laascaanood gobolka Sool iyo dekadib Boosaataan Xaaji Cabdiqaadir u furay garweyne ku magac iyo dekadib Cadala aan qaali qalbi u furay dhamaan meeshii markala dhaay waa dalka Sacuudi Carabiya magaalada Riyaad ilaa magaalada Xudur dalka Waajid waxaan ogeysiinayaa ummadda shacabka Soomaaliyeed ilaa dalka Talyaaniga magaalada Roma Milano Turin Napoli in diinta shariicada islaamka aan ku dhaqi doono ummadda shacabka Soomaaliyeed qofka aan wax qof ninka wax garadka oo xilka astaayla ay caalamka soo doorteen iyo Soomaalida waa aniga dadka faqiirka iyo dadka taajirka sidii dadka qaxootiyada ee degan buushashka siigaala ilaa buushashka badbaada weydow iyo tarabuunka ilaa buushashka jasiira aniga ay soo doorteen ilaa doonleyda xalmacaan waa injineer professor Colonel Dr. Sheikh Alxaaji Daahir Cabdulla Cusmaan Axmed Boqol Jirow ku magac dheer injineer Xaajigaw ama Daahir Makiimo waa la yaqaan Soomaalina waa itaqaan waa odiga jaamac barow dhali iyo togana baasara kafuut yaana been la isku sheegino Soomaali haday soo doorata si cadaalad ah u dhaqaya qof faqiir ah xataa lama arki doono dadka koolada cabay naag inta ku dara booliska military daraawish ka dhigala Soomaalina wax waa u qabanaya hadda korna 20 sano hal bilood timo ayaa hayna xukuumadan inay waana hay buundadi jawarna waa soo dhisi tii maaday tii balcadna waa soo dhisi caalamka waa laga yaqaan qabiilna kuma shaqeyn jirin cadaaladan ay haddana saan u shaqeyn jiriya u shaqeynaya tuuteegi ayaa maanta gasharaba insha Allah taala aan bilit Soomaalina saa ugu shaqeyn jir ayaa ugu shaqeynaya ninka baadilka wado dameerka cuni jiray oo wuxuu qaba karin aan aqaan nin raba mara wada go out waa nauko wajiya Nigeria wala salaam لكن إيكو عبرنا وواجهنا قنجيو توكا على سوق الرجم على عدو ونبنجيو نوكو سعودي عربية أنا قوالي يعني مركز الصدر جامع برا وحيلك وسيدي بيا بدوني برلمان تقولنا كذا كون رئيس الوزراء على سوق وسيلك عشان إن سير تريم تريم بوليس لقلبي عدالة وشقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.